fell on the ground for the bullets. Hayo ndiyo yaliyokuwa matamshi ya Ismail Maalim Ahmed ya mwisho, mzaliwa wa Somalia, mikononi mwa wanamgambo wa kundi haramu la Al-Shabaab, kundi lililomwacha hoi na nusu maiti, na ambayo anadai ilimpiga risasi 9 mwilini kabla ya kumnyang'anya mkewe na kumuua katika tukio la kuofisha huko Somalia. I walked on the knee and the hands until 10 meters. Dogs attacked me when I was in the forest. 3 dogs attacked me and attempted to eat me because the dogs were eating the blood of the people at the time of the fighting, which was between TFG and Islamic Court in Idale, my wife. After that time, I was told that she was a forced those people. ummadda Soomaaliyeed samaha jecel reer gurmud qaran liyaali aad baan kuu salaamay waa shay liyaali nuur salaam qiimo badan iyo gadoon hala soo xaroodo insha allahu tacaala barnaamijkan waxaan rabaa inaan uga hadlo arrin muhiim ah insha allahu tacaala aniga ay personal ii ah taasoo aan laga fursanaynin in laga hadlo waqtigeedana maanta ay taagan tahay insha allahu tacaala maxaa yeelay wax walba waqti bay leeyihiin walaalaha Soomaaliyeed samaha jecel meel walba ay joogaan waa salaamantihiin waxaan rabaa inaan maanta aan ka hadlo arrin aniga personal ii ah oo runtii kolba wax walbana waxay u baahan yihiin dulqaad iyo sugisho iyo sugitaan bay u baahan yihiin wax walbana waqtigiisii bay yani markii la gaaro ayaga iska imaanayo waqul jaa alhaq wa zahaqa albadil inna albadila kana zahuqa walaalyaal sidaad ogtihiin aniga waxaan ahaa nin dhibana ah oo ay dhibaateeyeen nimanka xaq jirka ahaa ee shabaab ahaa oo runtii dhibaato weyn ay ii geysteen laakiin teed intaanan gelin ka hor maslaxada inuu Abu Mansuur isu soo dhiibo yani ummadda Soomaaliyeed ugu jirto ayaan rabaa inaan in yar ka taabto iyo sidii looga faa'iideysan lahaa Mansuur Robow runtii Abu Mansuur ama Mukhtar Robow Abu Mansuur runtii waa nin yani muxuu ahaa ninkii wuxuu ahaa nimankan maanta duur ku jira xaq jirka ah aabihii dhalay labaad ayuu ahaa runtii runtan inaan sheegno ilaahay baan ugu jeclaanayo nin wuxuu ahaa terrorist group buu ahaa oo xaq jir ah haddana markii kolba wax walbo يعني محوها مانتيتو عريري فرد بدن مركي لقلي أو لدباتوضي دوركي لوجري وايي مصلحة دولة جعل إيو صومالي جعل ومسو ديبن يعني أرنتا سيدا معهن صوماليان جعلادي إيو دالكي يجيبان جعلهي إيو ودنينيما معهن وعاكسو تنباديي حنون إيو عذرو فرد بدن وكلا كلمي انتو دور جوغ أها waxaan aaminsanahay hadii yani maanta toona xanuunkaas uu ka reesto oo caafimaado naf waxay u baratay madaysa inuu dib ugu laabto ragaan ayaga ah runtii waa laga yaabaa mana inuu group kala samaysto xisbi kala u abuurto ruuxa bani aadamkana waxa muhiim ah in ay deeqdo diintan islaamku waa diin waasaca diin cariiri ma ahan دين مشدد نمي إيو يعني محوها إن أمود لوه هلاغو لو تلقى معها ودين نولول أو نولول بني آدم كي نولي سام إن دم بأوره الشاكتي إنو دور كجري وايو يعني أبو منصور ميراه دقنان جري وحاكمدها ديغان كانيga كسو جيدو ميراها إن بدنا أسيق اسكو قرين جري وديغان كانيga أن كدشي أو يعني محوها باي قبل كباي إلا يجبضة دحى إن إيريا دولة بخاصة دينسور إيريا أيو أديك اسكو قرين جري إن مدة هالكاس أيو كنولا إن دجو ماشي دقنا آد بوبرتي
shakhsi يعني wuxuu u bartay hatta wuxuu kala bartay sida loo kala degan yahay beelaha meesha ku nool deegaankaas degan qaabka loo kala degan yahay wax walba nin yani fahmay buu ahaa in muddo ah dhaxdooda ku dhuumalaysanay inuu isu soo dhiibo dawladda dan weyn bay u tahay laga yaabo inay ku soo daysadaan dhiigyo cabyo kale oo yani khawaarij ah oo runtii asaga oo kale ahaa oo ilaa hadda aaminsan hadafkiisa sida cali dheere iyo rag lamid ah iyo hebel karataygan hadda dhaawaca inay ku daysadaan oo yani muxuu ahaa laga yaabo madaxa laga dil haddii ayaga isu soo dhiibaan raggan kale oo ayaga yani muxuu ahaa barnaamijkan xambaarsiiyeyna oo waxaan ay ku shubeen inay ka soo shubaan oo ay ka daadiyaan ayaa laga yaabaa laakiin waxaad ogaataan soomaali inay ogaato roobowyo fara badan abu mansuuro fara badan oo yani hadafkaas haysto inay duur ku jiraan taas in la ogaada loo baahan yahay wixii aan la dhihin oo las dhigto oo la yiraahdo yani muxuu ahaa waa is soo dhiibeen haddii mansuur u imaado wixii hadafkaas iyo qurunkaas xambaarsanaa yani fikirkoodii waa toosay in la yiraahdo waa macquul inay dawladda inta istiraado ay isdhigato oo saas ayada dhibaatooyin fara badan ay ku dhashaan waa macquul waxaan rabaa marka ummadda inaan u sheego abu mansuur inuu isu soo dhiibo dan baa ku kaliftay dan ayaa ku kaliftay ummaddii asaga samaystay khawaarijtii asaga abuuray oo isku hadaf ay ahaan jireen ayuu ku joogi waayey duurka kuwii buu ka noolaan waayey waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa barnaamijka inaad sheergaraysaan maxaa yeelay barnaamij midna wuxuu ka hadlayaa aniga taariikhdeydii baan rabaa inaan dib ugu laabto hadduu ilaahay idmo abu mansuur iyo aniga wixiina dhexmaray markhaatiyaashii qoraaladii oo yani muxuu ah uu qoray dhibaatooyinka aniga la ii geystay maalinkii dhibaatadii ugu xumeed ee foosha xumeed ee 9 xabadood ay igu dhufteen ayaan rabaa in yani muxuu ahaa wax ka taataabto hadduu ilaahay idmo ballamadii ay qaadeen ballantii uu galay ma oofin mise ma oofinin maxaa ka dambeeyey yani maxaa dalka aniga iga soo saaray ya arrimo yaroo kooban baan rabaa inaan insha allahu tacaala ummadda inaan u iftiiniyo iyo dacwaddii abu mansuur oo maanta taariikhdu ay tahay shalay buu isa soo dhiibay bish waxaan u malaynayaa inay ahayd 13 bay ahayd maantuna waa 14 bishii agost 14 bishii agost waaye hadduu ilaahay idmo dacwaddeydii isla maantaba inaan xareysto oon diro oon gudbiyo dowladda soomaaliya iyo meelihii arrintan shaqada kule iyo yani muxuu ahaa maxkamadda shacabka soomaaliyeed iyo midda xooga dalka iyo intaba inaan u gudbiyo ayaan rabaa laga bilaabo maantaba inaan hawsheeda aan bilowdo sababtoo maxaa yeelay wax walba waqtigeedii baa la sugaa wax walba waqti bay u baahan yihiin kuwo kaloo asaga ka dambiye badan baa jiro oo yani muxuu ahaa dhibaatooyinka aniga personal ahaan ay ii geysteen baa jiro ayagana insha allahu tacaala timekoodin baan sugay hadduu ilaahay idmo oo aniga aan ogahay hebel aan dhihi karo laakiin ninkii ugu weynaa oo odaygii ugu weynaa hawshaan madax ka ahaa lagala tashtay awaamirtan bixiyey oo in yani keligay ma ahan raggii saaxiibadeedii ahaa hay-adaha gargaarka u shaqayn jireen oo runtii magacyadooda insha allahu tacaala iyo guddoomiyaashii degmooyinka gobolka baay iyo bakool ilaa shabeellaha hoose ilaa iyo maarkana muxuu ahaa labada jubbo raggii lagu diray oo runtii yani waqtigeygii isku waqtiga aan ahayn inaan magacyadooda dhammaan hadduu ilaahay meeshan aan ka sheego raggii dhintayna carruurtoodii baa joogto abu mansuur insha allahu taala raggaas ayagaa magtoodii waa loogu baahan ilaahay idinkiis waana taas ayada waa mid sharci diin islaam iyo mid adduunba labadaba way qabaan oo yani muxuu ahaa maxaa yeelay wax kaloon ku qaadayna ma lahan ballanqaayadiisii baa meeshaan ugu hayna wixii asaga uu ballanqaaday baa meesha ku hayna hadduu ilaahay idmo qoraaladii dukumentigii laswadaarsaday waqtigii dhibaatooyinkan dhaceen ilaa ma yani muxuu ahaa dukumentigii baa halkan yaallo insha allahu tacaala oo qaar asaga iyo united nationka ay kala saxiixdeen markii dhibaatadan aniga la geystay oo su'aalihii la weydiiyey qaabkii ugu jawaabay insha allah waa idin dulmari doona ilaahay idinkiisii walaalayaal waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inay ogaato abu mansuur inuusan isu soo dhiibin haddii yani muxuu ahaa caafimaadkiisa okay ahaan lahaa wax kastoo duurka wax ka soo saar uusan heli lahayn uu isaga jiri lahaa hadafkiisii baadil ha u ahaado ama sax ha u ahaado uu iska wadan lahaa laakiin maantayto yani dan baa baday inuu duur ka soo baxo magaalada soo galo intaas waxaan leeyahay dowladda soomaaliya ha ugu faa'iidaysato qaabkii loo xureyn lahaa gobollada 6 gobol oo khawaarijtan ay ku ilmo dhashay
oo ku soo aas-aasantay lagana saari waayey mar walbo la saarana meeshaasay u dhammaadaan haddana meeshu bay ka soo kabtaan ya mar walbo waad aragteen waddankan waxaa soo maray niman al-ittihaad al-islaam la yidhahda soo maray dagaalo fara badan baa lala galay markii dagaalka lala galay sidaad ogtihiin meelo badan bay weerar ku qaadeen Boosaaso iyo meelo fara badan Cabdullaahi Yuusuf dagaal buu la galay wuu ka soo saaray waddanka waxay u dhamaadeen luuqana ay imaadeen ilaa ay Buulaha ay ka dagaal ku galeen gedo gobolkan gedo la yiraahdo way sii baxeen waa laga saaray dalka waqtigii yaani muxuu ahaa waxay u dhamaadeen halka iyo Ras Kamboni meel yiraahdo ay galeen oo yaani Axmed Madoobe muaskarkii weynaa Axmed Madoobe meesh ku lahaa ay u dhamaadeen halkaas ay galeen ruux walbo ay ka tirsan markii laga xoog badiyo wuxuu aadaa halkaas iyo Kismaayo waxay galaan geedaas hoostoodii yani jasiiradaas bay galaan kuda ilaa iyo markii muxuu ahaa Kismaayo markii la dhaafo waa meeshii yani muxuu ahaa madaxweynihii hore Sheekh Shariif markii ummadii baaba'ashay oo baabi'iyay oo meel walba yani muxuu ahaa ku rafaadiyay yani meelihii uu gali jiray ayay kamid ahayd yani raggan waa isku dambi Sheekh Shariif Abu Mansour nirig xalaal maxay Soomaali maxay dhihi jirtay hal booli ah nirig xalaal ma dhasho raggan kulligoodii waa isku xisbi raggan aad u jeedaan waxaan filayaa inaad taqaaniin dhammaan waa isku xisbi waa dameer iyo dhagihiisi wixii ka maqan insha allahu taala dib baan ka sheegi doonaa Axmed Madoobe indhacade Sheekh Shariif wiilkan Zakariya yiraahdo Mukhtaar Roobow dhammaan dadkan waa dadkii ummadan Soomaaliyeed burburka iyo halaaga iyo nabad guurka iyo qaxa iyo barakac rag u horseeday number 1 bay ka ahaayeen American hadduu afiyay asigay u taala American annaka American minihin American waaye annakana Soomaaliyaan nahay annakana Soomaali baan nahay aniga raggan kale hadda wax aan ka sheego oo ii muuqdo malaha laakiin yani ninka Abu Mansour la yiraahdo ninkan Abu Mansour la yiraahdo hadda uu sheegay inuu toobad keenay hadafkii uu xambaarsanaa uu ka soo baxay yani fikirkii laga toobad keeno Ilaahay ba taas ayda iskale toobadan Ilaahay ba iskale hadii uu ka aqbalay haduu ka diiday ba taas mid Ilaahay u taalo laakiin mid aniga iyo asaga dhaxdeena taalo ma ahan mid aniga aan samar qaadanayo ma ahan mid aniga aan ka yeelayo ma ahan mid aniga xaqeygii yani muxuu ahaa kaga samray ama kaga aamusay ma ahan maxaa dhacay marka 26kii bishii July 2008kii maxaa dhacay ka hor maxaa 26kii bishii July ka hor bishii June dhamaadkeedii waxaan shaqo ka fuliyay campaign oo runtii cudurka dabaysha uu ku saabsanaa WHO iyo UNICEF ay isku kaashadeen bishii June 18keedii 19keedii 20keedii 21keedii waxaan ku qabtay seminar weyn magaalada Dinsor degmada Dinsor ayaan ku qabtay seminarkaas oo ay ka soo qayb galeen tiimim gaaray ilaa iyo 267 ruux oo qaarkood ay yihiin team leader oo yani focal point ah tuulooyinka ay qaabilsanaa qaar degmada gudaheedii qaar tuulooyinka qaabilsanaa baa la isugu yimid seminarkaas asaga ahaa wuxuu ku dhacay degmada Dinsor seminarkaas asaga ahaa markuu dhamaaday kadib waxaan aaday magaalada Baydhabo waxaan ka keenay vaccinekii oo yani muxuu ahaa hay'adda UNICEF ay bixinaysay ayaan ka doonay markii aan soo qaaday oo yani muxuu ahaa implementationkii ama hawshii aan fuliyay kadib waxaan watay waxa ilaa iyo yani kormeeradii iyo surveygii iyo wixii yani muxuu ahaa wuxuu ii soo gabagaboobay ilaa iyo 23kii bishii July 2008kii ayuu ii soo gabagaboobay isla 2008kii 26kii bishii July degmada Dinsor aan ka baxay Abu Mansour iyo raggiisii
waxay ku shireen degmada Dinsor rag Abu Mansuur ku jiro mid Sheekh Hussein la dhihi jiray oo qaraabo aan ahayn oo dhintay nin la dhihi jiray Timi Jilac oo asagana lagu dilay gobolada dhexe magaalada Dhuusamareeb lagu dilay go'aan waxay ku qaateen oo ahaa amar ay ku bixiyeen raggan Abu Mansuur ku jiro in qof walbo hay'adaha gargaar ku shaqeeyo in la dilo ayaa go'aan lagu gaaray shaqaalaha hay'adaha gargaarka waxaa laga bilaabay magaalada anaka istaraatiiji noo ah way fakareen degmada Dinsor ba istaraatiiji noo ah meega sirkaal ba joogto oo United Nation u shaqeyso oo imaad degmadan waxaa meesha laga helay Allah u naxariistay aniga iyo saaxiibkay Abdulqaadir Diyaad oo u shaqeyn jiray marka hore hay'ad iraado NGO yaro hay'ad oo national NGO oo mana non governmental ah oo ii sheeg adiga iraado adra iraado ayuu la shaqeyn jiray kadib uu ka rusqaystay wuxuu u wareegay hay'adda WFP wuxuu ka ahaa financial assistant buu ka ahaa financial assistant-ga ayuu joogay Abdulqaadir Diyaad liiskii waxaa soo galay aniga iyo Abdulqaadir Diyaad 26 bishii July baan degmada Dinsor ka baxay sida ayaga ay mar walba ay rabeen waxyaabaha ay naga rabeen waxa kamid ah qofkii bahayo awaamirta ay siiyeen waxa kamid ah in yaani ruux walbo oo magaaladan ka baxo ama degmada Dinsor yaani ka shaqeeyo ama howl ka qabto oo hay'adaha ka tirsan inuusan wax hub yiraahdo qaadan karin hubka oo dhan in la dhigo anaku waa iswaardiyen jirnay hub baan haysanay dad waxaanu ahayn ayaga yaani muxuu ahaa oo nafsadooda ayaga ilaashado ayaan ahayn hubkii oo dhan bay naga dhigeen maalmo ka hor intaan anaga safarka aadin ka hor waxaa kaloo lagu wargeliyay qof walba baxay haddii kormeer aad aadaysaan waa inaad imaataan baa yidhi saldhigga booliiska ee saldhiggooda ayaga saldhiggii waagii hore booliiska joogi jiray yani stationka la imaadaa layidhi meeshii baa yani muxuu ahaa reportkii ayaan siin jirnay waan bixaynaa anaka meeshaasaan u socnaa waxaan u socnaa tuule hebel gobol hebel gobolladii amaalihii aan aadi jirnay baan u sheegi jirnay aniga 2-3 wado ayaa maalinkaas ayada ah yani waxay ii dhigeen in aniga la idil maadaama aan u tagay inaan bixi rabo Baydhabo u socdaan u sheegay in aniga la idilo 3 jid ayaa Baydhabo mar walba ku aadi jirnay 3 jid aan mari jirnayba waxaa la dhigay ciidan baa la dhigay ciidamo ayaa la dhigay ciidamadaas aniga inay idilaan go'aankoodii uu yahay informationkii oo dhan go'aankii waa la gaaray waxaa la go'aansaday in qof walba u shaqeeyo United Nationka in la dilo aniga iyo Abdulqaadir Diyaad ayaa xukunkii nagu dhacay walaalkii Allah u naxariistay waa dileen dilkiis waa ka guuleysteen markii aan ka baxay degmada Dinsor idaalan maray tuuliyaro raamacad ay yiraahdo ayaan salaadii duhurka ku tukaday raamada yaan dhihnay dharqo tuulo dharqo yiraahdo ku tukaday halkaas waxaan ka gatay aana gel waan sii baxay raggan magaalo goof guduud yiraahdo oo kuno badan famil ahaan markii yiraahdo qoyska Abu Mansuur ku badan rag asaga ilmaadeertiisi ah oo walaalihiisii ku dhow ah ayaa halkaas ii joogay oo isugayay ilaan meesh waa la kala baxa beel ahaan waa la kala baxa waa la sheegi wax la kala qarsanay maanta ma jiraan inaan runta ka hadalno waa loo baahan niman leysaan ah beesh leysaan niman ah saddex nin oo leysaan ah ayaa meesha iyada ah fariintii loo soo gudbiyay tuuladaas isbaara ii dhigtay oo la yiraahdo goof guduud waan baxay nimankii markay istaajiyeen waxay igu yiraahdeen jooji gaarigaygii bay soo galeen waxay la socotay 2 wiil iyo gabar
oo musaafur ah oo baydhabo u socotay nin saaxiibkay qabay oo asagan WHO u shaqeeyo bu'aala ka timid ee degmada Dinsor iga soo raacday wiil saaxiibkay ah oo bustood ii waday Allah u naxariistay wuu dhintay iskiis u dhintay ayaga ma dilin ayaa ila socday Maxamed Ibrahim Maday Buura oo yiraahdo waxa ila socday labadan wiil kale oo ihsaankan ku soo qaaday iyo gabadhaas ninka saaxiibkay qabo nimankii gaarigii bay isku soo cariiriyeen gaarigii aniga aan watay bay xoog soo fuuleen ayagii iyo amiirkii markaas watay oo wulba deegaankaas markaas oo meesha sayida u dhashay soo baxnay tuuladii markaan ka soo bixiyay afkeeda hore intaanan tuulada goof gududan ka soo baxay gooraysan intaanan soo gaarin laba dhaxdoodii meel isbaara hadda koor oo la jirtay qofkii yaqaano geed weyn oo golola ku yaala gololkii markaan gaaray bay waxay ugu yiri kii amiirka walaalow meeshan jooji gaaray waa joojiyay asigii baa degay labadii kale gaarigii ku hartay gadaashay waxa soo socday gaari kale oo hay'ad saas biliiraad u shaqeeyo oo xanaanada xoolaha qaabilsan ayay daba socday oo baraada ah gaarigii baraadada ahaana uu istaagay markaan ay istaajiyay waxay igu yiri ninkiina dan ilaahay noo qaaday waxaan rabnaa inaad tuuladaas yiraahdo dharqo inaad nageysid baabuur Dinsor ka soo baxayo oo hoomay ah oo rabno nimin yani muxuu ahaa noocaas nahay mujaahidiin baan nahay xalayba operation bay dhawaan ka soo fulinay saanwaay meeshana geebay igu yiraahdo waxaan ku yiri war safar dheer baan u socday ilaa waajid baan u socdaa seminar baan u socdaay walaalayaal barnaamijkan yani mid aniga igu soconayo ma ahan walaalayaal ilaahay dartiis idinkin igu daayaan dar ilaahay igu daay okay dar ilaahay igu daayaan ayagan dar ilaahay noo qad laba dar ilaahay baa isu timi meeshii ala kulli xaal war lacag baa idin siinaya gaari ijaartu waa iga diidan gabadhii iyo labadii wiil kale oo gaariga aniga ila saarnaa baan dajiyay yani gaari kale ku daray gabadhii labadii wiil kale gaarigii hay'adii baan ku daray oo kale idaba socday anigii saaxiibkay meeshii baan ka laabanay tuuladii dharqale dhihi jiray ayaan tagnay tuuladii markaan tagnay tuulada afkeeda hore xaqina geebay dhaheen yani warkan waxaan rabaa inaan general ahaan idin guud maro kadib aan u soo laabto dacwadda Abu Mansuur insha Allah ta'ala oo hubaal ay tahay inaan ku guuleysna ilaahay idinkiisa insha Allah ta'ala sababtoo hantideedii iyo xoolaheygii meel cidla uguma tegi karo carwadii alhuda la dhihi jiray ruux walba reer Dinsor ah dad badan oo reer Dinsor inay meesha ku jiraan waa laga yaabaa oo dadkeedii markhaatiyeeshada nool oo dadkii wax dhintay malaha way wada joogaan insha Allah ta'ala carwadii hantidii laga qaatay oo dhan baa la iska rabaa ilaahay idinkiisa ama famil ahaan ha loo bixiyo ama Abu Mansuur shakhsigiis ha bixiyo ama dawladda Soomaaliya ha ka bixiso I don't care about aniga waxba igama gelin aniga waxa waaye waxaan maanta inta taaganahay waqtigii cadaalad ayaan taaganahay inaan ruuxna ruux dulmin karin ruuxna ruuxu hantidiis xoog ku haysan karin yani muxuu ahaa arrintii asaga uu ballan qaaday baan aniga ugu taaganahay wax allaale wixii asaga uu yiri baan daba taagnahay ala kulli hal aniga meesha iyada markii oo dhibaatadii nimankii tuuladii aan tagay 9 xabood ba meesha iyada lagu dhuftay ilaahay baa ibadbaadiyay waatii habeenkii geel lagu xidhay hala gowrac leeyahay oo ka fakaday yani muxuu ahaa sii socday lagu tuulada yiraahdo Botis halkaas oo evacuation lagu sameeyay khayr Allah say xilibaan hadda nool qaraabadiisii aad igu gurmudan yani muxuu beesh jilible uu ka dhashay xilibaan afraale runtii ammaan gaar ahaaneed mar walba aan u hayo qoyskaas ayaga ah yani baal dahab bay qoran yihiin insha Allah ta'ala iyo maamadii ambulada isisay habeenkii markaan guureynay oo biyaha isisay iyo odaygii amaamadiis feeraha iga xirayba dhamaantoodii maanta waqtigoodii baa la taagay insha Allah ta'ala koodii baa la gudi doonaa ilaahay idinkiis taas ayada waxa way tii markii dambe Dinsor la igeeyay isbitaalka Dinsor gudihiis in lagu dhameystiro ayaa la damcay arrimahaas ayaga arrimo oo yani muxuu waa weyn waay insha Allah ta'ala hadda kama gaaro inaan aad ugu sheekeeyo laakiin dib baan ugu soo noqon doonaa Abu Mansuur يعني markii aniga dhibaatada igu dhacday oo Nairobi lii ka hayay yani muxuu ahaa wixii wada hadal oo odayaashii beesha dabare iyo Abu Mansuur dhaxmaray ayaan rabaa inaan idin guud maro
oo United Nationskana loo gudbiyay koobi ay ka qaateen oo haystaan ilaa ma haddeertan okay and United Nation qaybta security waxa joogay nin la dhihi jiray Tariq Khalil yiraahdo oo u dhashay wadanka Urdun u dhashay Tariq Khalil ayaa waxa meesha ka ahaa wuxuu ahaa UN security officer buu ahaa fadhigiis wuxuu ahaa magaalada gaar ahaan xarunta UNDP ayuu joogi jiray Tariq Khalil dear Ismail family asagoo email u dirayo aniga qoyskaygii markii yani maxaa hospital geeyay dear Ismail family I'm forwarding the mail below sent it to me by Dr. Martin the head of WHO Somalia. It has a brief description of Ismail condition of the yesterday and the photo of him in the hospital. Sawira liga soo qaaday isbitaalkayga markaan ku jiray familkayga xaaladeedii markii aan operation ka soo baxay si loola socodsiyo okay and dear Tariq thank you waxa message dirayo yani muxuu ahaa dear Tariq waxa hadlayo naagtii la dhihi jiray Dr. Martha oo u dhalatay wadanka Holland oo ahayd United Nation representative country representative Somali ahayd gabadhaas ayada ah Dr. Martha. Thank you for your message with this interesting information. I was just upload picture attached by Ahmed when I visited Master Ismail. Tariq Ahmed was صدقني بشهر July 2008 تاريخ وحيد July صدقني 2008 شنتي إيوه لاتني سجال دقيقة قبل ما يهد وماشون ونيروبي هوسبيتال إيوه وحاول هلا إيوه نيروبي هوسبيتال isbitaal keegi xaaladeedii iyo United Nation compound girigiri iyo United Nation compound by double ayaa wada hadlayo emailada waxa loo kala diray Losh Martinson ninka yiraahdo @undp.org Jen Losenbeck Marco Smoller undp.org host at UNFB waxa waaye hay'adda la yiraahdo oo qaybta yani muxuu ahaa political qaybta policy qaabilsan iyo subject below for the assassination attempt on WHO staff in Dinsoor okay and the Torres Mar thank you for this message with this interesting information. I was just uploading the picture attached and met when I visited by Master Ismail in the hospital yesterday evening. He was in a good spirit and talkative. He was very worried about his back. With the surveillance sheets which was in the car. أنا marka idin soo koobo Ismail oo aad u fiican oo yani muxuu ahaa sariir aad u wanaagsan dul saaran oo yani ayaan la kulmay oo aad u hadlayo oo fiican xaaladiis aad ay u fiican tahay laakiin wuxuu aad iyo aad ugu walwalsanaa documentiga dhan oo yani muxuu ahaa hay'ad iska lahayd iyo yani muxuu ahaa laptopkaygi iyo mobiladeedii iyo wax walba aniga aan lahaa yani muxuu ahaa nimankii yani muxuu ahaa khawaarijta ah ayaa isla markii meeshayda ka qaatay okay and runtii waxa waaye meesha waxa la iska indhatiri karo ma yaalo documenti buu yaala and information ka asaga magaca ugu gudubno I receive information okay waa kan markii reportkii Abu Mansour laga helay oo yaa helay dear Losh yaa helay Tariq Khalil bale Tariq Khalil ninka la yiraahdo report ayaa wuxuu ka helay Abu Mansour I received information that Al-Shabaab leader probably Mukhtar Robo Abu Mansour and under the pleasure of the clan elders in Dinsoor have agreed to return the vehicle of the WHO. Waxa lagu wada hadlay la isku raacay in gaarigii WHO degdeg loo soo celiyo yaa ku wada hadlay aniga qaraabadeydii iyo beeshii dabare ee degmada Dinsoor iyo Mukhtar Robow ayaa wada hadalkan dhaxmaray muxuu ballan qaaday in aniga gaarigayga degdeg loo soo remember which was taken after the assassination attempt isku daygii dilkii fooshuxuma markii ay isku dayeen nimankii al-shabaab ka ahaa oo uu yani muxuu ahaa ay ka amar qaadanayeen Abu Mansour they also agreed waxay isku raaceen to give compensation Islamic diya in Islamic deal la bixiyo to the family qoyskii of the victim of the victim and us if he was killed hadduu dhinto iyo hadduu nool yahayba in magtiisii si totally loo bixiyo and to return back
that the sums ama lacagihi which was taken from Arwa al-Huda iyo dhaqaalihii laga qaatay Arwa al-Huda taasoo lagu qiyaasay odayaashii elderskii ay isku afgarteen in la bixiyo $50,000 okay in $50,000 Abu Mansour haddii aniga aan noolahay waaya if I am haddii aan aniga yani muxuu ahaa remain alive haddii aan noolaado ilan waxaa ii dhineed laba operation kala ii dhineed haddii markaniga aan noolaado maxaa la isku raacay inuu Abu Mansour bixiyo lacag dhan $50,000 ayuu ballan qaaday when goormaa haddaba goormaa lacagtaas ayada ah la ballan qaaday Abu Mansour bish odayaashu la kulmay waxay ahayd August bishii August saddexdeedii astaghfirullah bishii August afarteedii bay kulmeen sanadkii 2008kii saddexdii sorry afartii bishii August بعد صلاة العصر ساعدوا مركي هاد أفرتي كنت نشم دقيقة وقتها قبل هذا أما يعني محوها وقتي يعني محوها دقمة الدينصور صلاة العصر كدب مركي لقى صباحي وحالو كل مي يعني محوها قريقة دولة دهوسة ماشي دقنان جرتي أو أيجا نمنك الشباب وقتها سيدة أيوة هاد حرون oo yani muxuu ahaa ay ku shiraan ama ayaga xafiis gaar u leh ayay ahayd meeshayda waxa la isku raacay in la bixiyo lacag $50,000 haddii aniga aan noolahay haddii aan dhintana that will be involved number of camels of 100 camels of Islamic diya haddii aan dhintana 100 halaad geel ah in la bixiyo oo ay u dhiganto neef walba odayaashii markaas meesha waxay ku dhufsadeen $700 geel waqtigiis markaas ayada uu joogay 100 halood geela waa $70,000 haddii aniga aan dhinto haddaan noolahayn in intaas la bixiyo carwadii waxaa laga qaatay carwadii al-Huda lacag kaash ah markaas dhaxtiilay waxay ahayd lacagta markaas taalay carwada $4,500 oo markaas ayada kaash ahaan ay u taalay way qaateen carwadii bay taalay way qaateen $4,500 meel ah iyo safarkii yani markaas ayada carwadan u soo adeegay moobelo oo runtii kaamira ah oo 64 xaba ah iyo moobelka la yiraahdo 3310 moobelka la dhihi jiray oo asagana kaamira leh waaye noocaas ku xigay waaye oo asagana markaas ayada ah 10 xabo horay u dambeysay iyo moobelka la yiraahdo nicle qofba siduu u yaqaanayo u yaqaanaa oo 120 xabo 123 xabo taalay intiiba yani muxuu ahaa waxaa la isku afgartay in la soo celiyo ama moobel ahaan ha loo soo gado ama yani muxuu ahaa lacag ahaan ha loo bixiyo waxaa la isku afgartay moobelada ayaga qiimaha markaas ayaga ay joogaan magaalada Muqdisho lagu soo qiimeeyo ayaa la isku afgartay arintaas ayada ah runtii walaal iga raali noqdo Salim Hussein Hello, assalamu alaikum. Hello. walaal assalamu alaikum. Fiican walaal haye. Ya walaal. والو فعلا والله الشر بان كجرا ان شاء الله بعد الشر هدي ارين غار ahaanada ay jirto waad isoo kartaa insha Allah taala ha walaal qasidii igu dhacday shabaabka waa maasanta insha Allah saad ay insha Allah ay walaalayaal rag badan oo radiin soo ba meeshan ku jiro oo qadka runtii waan salaamay rag badan oo jecelahay ba meesha ku jiro oo saaxiibadaya uu kamid yahay Mahfoud Abdullah Salim kharalaas iyo saaxiibkii qaaliga aad iyo aad baan ku salaamaya maxaa yeelay waxa waaye waa dadkii marxaatiyeeshii noolnolaa waa adduunyada joogay waa insha Allah taala walaalayaal marka waxaan idin sheegayaa Abu Mansour
wuxuu ballan qaaday inuu bixiyo yani muxuu ahaa $70,000 haddii aniga aan dhinto haddii aan noolaa $50,000 oo magtaydii ah iyo in carwadaas hantidii laga dhacay dib loo soo celiyo waxay yiraahdeen badeeco ahaan ayaan u keenaynaa okay arrintaas ayada ah ayaa lagu faatax martay United Nations reportkaas loo gudbiyay anigii Nairobi Hospital ayaan ku nigaaday in muddo ah aniga waxaan ka soo baxay isbitaalka 19 bishii August waxaan ka soo baxay Nairobi Hospital baan ka soo baxay Hotel Barakat oo 12 Street ku yaalo ayaa si outpatient ahaan si dhakhtarkaygii yani muxuu ahaa arinteedii follow up ugu siiyo maadaama ugu sameeyo halkaas ayaa la dejiyay September 18 baan dalkii dib ugu soo laabtay maxaa dhacay al-shabaab markaan soo laabtay inaan aniga soo laabtay ogaadeen degmadeedii Dinsor baan imid halkaas oo ku nooleed hooyaday Allahu naxariiste bishii waxay dhimatay 3 bishii 12aad yani muxuu ahaa 2014 bay dhimatay hooyaday Xaliimo Jeel Isaaq Allahu naxariisto yani muxuu ahaa markii ay dhimatay kadib yani nimankan khawaarijta ah yani waxa dhacday in yani muxuu ahaa ay shir ay qaataan soo laabashadeed markii report aan siiyay maadaama aniga aan mar hore victim aan ahaa soo laabtay oo dalkayga dib aan ugu soo laabtay inaan ummadaygu adeego go'aankaygu yahay oo hooyaday aan u soo laabtay carruurteeda aan u soo laabtay yani martiqaad baan sameeyay gurigaygii baan ari ku qalay bil Ramadaan baa lagu jiray dhamaadkeeda afur baan sameeyay nimankii khawaarijta ahaa waxa markaas ayada meesh yimid Mansuur ma imaanin waxa yimid nin macallin janow la yiraahdo iyo rag kale oo afka duubnaa oo hadda aniga aanan kala garanayn ilaa waqti habeen bay ahayd waan hadlay waxaan rabaa inaan ogaado sababtii aad ii disheen waxaan dambi oo idinka galay hay'ad baan u shaqeeyaa United Nations baan madax ka ahaa WHO baan u shaqeynayay digniin iimaynan siinin waad ii disheen 9 xabood ay u dhufteen hantideedii baad qaadeen oo dhacdeen oo yani arwadeedii dhar wixii yaalay iyo yani muxuu mobiladii qalabka electronically wixii dhawaa dhacay arrintaas ayada wixii aan ku mutaystay baan u baahanahay baan ku yiri habeenkaas isaga ah Abu Mansuur waxa wakiil u ahaa oo soo wakiishay macallin janow goobjoog waxa ahaa Sheekh Hussein ilaa oo dhintay qaraabana ilaahay uma naxariistana ma dhihi karo ilaahay ha u naxariistana ma dhahayo ma garatay ninkaas isaga ahaa goobjoog ahaa dhammaan meeshii baa la soo yimid ala kulli haal waxa la akhi waa lagu qaldamay saan waay inaadan jaajus ahaan wax walba noo muuqda saan waay waa September ballantii hantidan in la bixiyo lagu ballamay baawurkeygii iyo wixii aniga iga maqanaa oo dhan hantideedii mobiladii iyo lacagtii magteedii la waa noolay $50,000 iyo yani muxuu ahaa mobiladii iyo lacagtii cash-ka ahayd oo carwada ayadoo taala la qaatay oo yani muxuu gudaheedii goorma la ballamay waxa la ballamay in la bixiyo bisha December 30 bisha December ballan la qabsaday goorta la kulmay goormay ahayd waxay ahayd 4 bisha August 2008 August September October November December 30 lagu kala baxo ayuu go'aanka ahaa maxaa dhacay waxa dhacday oo ilaahay qadaray bisha December 26 in niman ragii habeenkaas kolba ku afka xirnaa waa nin baragaab yiraahdo iyo nin kale magaciisa daanan xasuusin iyo kii qaraabadaan ahayn oo Sheekh Hussein la dhihi jiray la ii soo diro oo la yiraahdo imaw xafiiska al-shabaab salaad asr baan u socday markaas waxa lagu yiri asrka hagalna soo laab adiga iyo ugaaska dabaraha waqtigaas nin siiday la yiraahdo ayaa ugaaska dabaraha ahaa siiday Haji Maxamed Nuur iyo adiga iyo samadoonkaagii liiqligato xafiiska al-shabaab ee ku yaalo meesha ila imaada salaad asr u socdaa baan markaan soo tukado markaas ugaaskii liiqligata wili saaxiibkay walaalkay eedaday baa dhashay salaadii asarkii anoo u socdo oo masaajidkii intii arintaas aysan dhicin ka hor
September iyo October iyo November waxaan ka badbaaday ilaa iyo tiro 6 jeer baan dil ka badbaaday in aniga la kharijiyo degmada Dinsor gudaheeda isku day dil ayaan ka badbaaday sababtoo habeenkii markii go'aankan la gaaray waa lagu qaldamay magtaada waa lagu siina lagu wada hadlay gurigeygii oo lagu kala tagay isla habeennimadii koox kala bashir qabsatay waxa la yiri waxa asagoon la dareemay laga silent la saara la yiri madax masaajidka salaad subax shababan u daayay ظهر شباب أنا مخرب شباب u daayay masaajidka ishahna waan u daayay saddexdaas waqti wiligay Allah masaajid kuma tukanin waxa ku tukan jiray gurigay magaalada waxa ay deganaa saddexaas ay deganaa habeenba guriga ku hooyin jiray habeen walba waxay ku wareereen meelaan u hooydo habeen walba waxa la soo sheegaa darbiga gurigeeyay ayagoo dhufees gurigan u hooyinay ma kan kala sandaqadaha naaga yaanyadii wax ku gadgataan ayagoo meesha keeblo yuro ay fadhiyaan laakiin alxamdulillah rabbil alamin habeenkii markii la gaar aniga nooc kala dhaha makhrab dil la gaaraba aniga nin nooc kala dhahaaba dadkii marxaatigayga waa nool yihiin maanta inta qaar kamida meesha ku jiraan baryoton uguma soo bixin degmada Dinsor saddexdaas biloodna ilaahay mahadiisa waxaan ku joogay xoogaygi baawr ayaan ku joogay xoogaygaan ku joogay ayagana way og yihiin ma garad hubkaygii baan ku joogay oo aan lahaa alxamdulillah rabbil alamin kharalasiyo staff waxaan lahaa dhalinyaro oo maanta magacyadooda aan sheegay mid kamid ah ilaahay ha u naxariisto ayaan dawad ayaga dilay muddada waxa laga jooga dhowr bilood ba laga jooga saaxiibkay qaaliga ah baadiyo la dhihi jiray ayaga dilay khawaarijta dishay tuulada Misr lagu dilay ma garad rag staffkayga ahaa waxa ka nool ilaa iyo 5 ba ka nool ma ilaa iyo 4 ba hadda ka nool oo dunida meelo kala duwan ay ku nool yihiin baadiyoon waan rabay inaan soo wado ama yaani muxuu ah waqt jaanis aan u raadiyo laakiin ima suurta galin Allah u naxariisto laakiin aniga daraadii looma dilin arrimo kale u dileen dadnimadiisa ay u dileen iyo kartidiisa iyo geesinimada uu lahaa ma garad habeenkii waxaan ahaa nin as ayagaba aanan ka hub yareen yaani ka taatay yareen yaani muxuu ahaa